السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم walaalayaal waa salaamantihiin waa casharkii waxaan wadnaa barashada PHP variables constants and data types ayaan weli wadnaa marka waxaan rabnaa inaan hal u qeexno waxyaalaha soo socda marka waxyaalaha soo socda waxa weeyaan variableski iyo constant data typeski marka data typeska PHP sida PHP variables waxaan u isticmaalnaa inaan ku kaydino macluumaadyo kala duwan si programku u isticmaalo marka daatooyinka waa sidan soo socda waxaa ka mid ah string oo noqon kara qoraal caadi ah sida hello ali oo kale oo ku jira integer waa data u taagan sida nambarada 1 2 3 56 109 waxaa kaloo jira waxa la dhaho float oo ah tiro jajaban ama number jajab ah sida number wata maaragtay decimal point wato 1.2 56.3 kaas ayaa PHP loo yaqaan float iyo boolean oo ah data u taagan run ama been in maaragtay arrin programku u hubsado ama sax ama khalad ay tahay iyo waxaan kaloo baranaynaa array oo ah datada lagu kaydiyo waxyaalo fara badan marka iyo objectional resources kulligood halaal ayaan u qeexi doonaa haddii la haydo marka hadda waxaan qeexaynaa string marka waxaan sameynaynaa insha Allah sida halkan ku taalo sida loo abuuro loona isticmaalo PHP string marka halkan sida uga jeedaan waa sida loo isticmaalo ama loo abuuro PHP muhiimaddu waxay tahay marka hore inaan fahamno in PHP ga mar walba markaad rabtid inaad code samaysid shayga aad ka bilaabaysaa uu yahay calaamadaas kor ku qoran oo ujeedid calaamada guduudan iyo taas hoos ku taala dhexdooda waa in codekeen u dhaxeeya labada meel waa in u dhaxeeya halka ilaa halka waxaan yelowga ujeedaan waa follow ama waa comment uusan programkeena uusan akhrinayn oo maaragtay annaga aan u isticmaalayno guide ahaan waxa aan programkeena uu sameynayo mar walba aan is xasuusino misalna hadda line-ka labaad wuxuu leeyahay qeex variable la yiraahdo str kuna kaydi string la yiraahdo hello world macnaheedu wuxuu yahay variable-kan str waxaan ku kaydinaynaa qoraalkan ah hello abdi marka kadibna programkeena wuxuu sameynayaa sida halkan hoose ku cad iyadaba wuxuu ku qorayaa bog ama screen-ka waxa ku kaydsan str saan u ogaano in maaragtay programkeena uu sameynayo bal marka aynu sameyno demonstration haddii la yiraahdo in maaragtay aan hubsano in maaragtay apache uu noo shaqeynayo si aad u ogaato inuu ku shaqeeyo marka hore waa inaad start dhahdo hadda uu noo shaqeynaya alxamdulillah rabbil caalamiin marka waxaan kaloo sameeyay wixii hadda ku qornaa meeshii bogga noogu qornaa ayaan halkan kusoo koobiyey sida qeexidii str oo aan ku qornay hello world iyo tii kale oo ahayd maaragtay sida loo qeexay marka programka waxaan leenahay filekan waa file cusub oo ku save gareeyay kaydka PHP oo ah folderkii markii ugu horeysay casharka aan bilaabin inaan ku save gareynay marka halkaas ayaan string demo ayaa la filekan hadda marka haddii aan damacno inaan string demo aan programkeena u access gareeyo bal aanu tijaabino waxa uu yiraahdo wuxuu leeyahay syntax line error ayaa ka jiro uu leeyahay meeshan line 8 marka line 8 syntax error ka jiro muxuu yahay marka aynu aragno line 8 syntax ka jiro okay calaamadaas uu diidan yahay oo echo ka horeyso mu aqoonsan lahayn marka waa inay noqotaa echo kaliya calaamada dollarkana ay raacdaa variable-kii anaga aan markii hore declare gareynay haddaan save gareyno oo mar labaad isku dayno inaan programka soo load gareyno saad ujeedaan halkan string-kii aan ku save gareynay str ayuu noo soo celiyay oo ku qoray maxaa la dhahaa screen-ka ama bogga website-ka hello abdi ahay haddaan hadda damacno inaan maaragtay xaqiijino inay sax tahay in kale magacun baan bedeli karnaa haddana waxaan leenahay hello caasho haddana programka save gareyno oo save dhahno marka haddana boggi aan refresh ku sameyno hello caasho soo baxayso taas waxay ku sheegaysaa string-kii aan declare gareynay oo magaciisu ahaa str oo aan ku keedinay wixii aan rabnay inaan ku keedinay inaan awood u yeelanay inaan screen-ka ku qorno waxaan rabnay marka muhiimaddu waxay tahay inaan waxyaalahan data typeska oo PHP variable aan hal u fahamno marka insha Allah casharada kale hadda soo socdo marka waxaan ku arki doonaa integer iyo kuwa kale oo noo dhiman hadii la yiraahdo marka aan casharka soo socdaan isku arkayna hadii la yiraahdo mahadsanidin